fatahaaddan webi Shabeelle uu ka geystay deegaano hoos yimaada magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa sababay in saameyn ballaaran ay ku yeeshaan boqolaal qoys kadib markii biyaha ay gooyeen beerahooda dalagyadii sanadkan ay ku beerteen. meelaha webiga ka fatahay waxaa ka mid ah deegaanada Tuugaarey, Gumbo, Baari, Geedabarkan, Timir iyo deegaano kale oo dhowr ah. waxaana jira deegaanada qaar dadka xaafadahooda inay isaga barakaceen kadib markii biyaha guryahooda oo ka samaysan cooshado ay harqiyeen dadka ka dhashay fatahaadda webiga. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ku guuleystay in ay xiraan meelaha qaar ee webiga karkaarada ka jabsaday, laakiin muddada fatahaadda ay socotay ayaa waxaa ka dhashay khasaare xoog leh oo inta badan ay soo gaartay dadka ku nool tacabka beeraha, maadaama biyaha webiga ka soo baxay ay cagta mariyeen beerahooda dalagyadii ku yiilay. sidoo kale biyaha fatahaadda ayaa waxay go'doomiyeen deegaano dhowr ah kadib markii biyaha ay gooyeen jidadka loo mari jiray tuulooyinka webiga uu ka fatahay iyo kuwa ka agdhow. deegaanada qaar dadka ku nool waxay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah, maadaama isha keliya noloshooda ay ku tiirsaneed oo ah tacabka beeraha ay la tageen daadadka fatahaadda ka dhashay. dhinaca kale cabsi xooggan ayaa laga dareemayaa magaalooyinka Mahadaay, Jowhar iyo Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe, maadaama webiga uu wado biyo la siman hareeraha webiga. haddii ay dhacdana in biyo kale ay ku soo darsoomaan webiga ay ka dhalan karto fatahaado. Ibrahim Cali Nuur, TV-ga Universal, Jowhar.